kulan wacan taageerayaasheena barteena YouTube-ka oo ku xiran waxaan idin soo gudbin doonaa warbixin ku saabsan qaliinka soo celinta bikrada. Bikranimada gabdhaha da'da yar ee Iiraan ayaa leh muhiimad weyn oo dhinaca bulshada iyo dhaqankaba ah. Haween badan ayaa isku sameeya qaliinka si ay u soo celiyaan bikranimadooda ka hor habeenka aqalgalka. Isbitaalka ayaa lay dhigay kadib markii aan galay shil sinta ah ayaa iga jabtay xanuunna wuu i hayay. Kadib hooyadeed ayaa weydiisatay dhaqaatiirta in la hubiyo bikranimadeedii. Mahnaz ayaa ahayd 21 sano jir markii ay shilkii ay ku gashay waqooyiga Iiraan, kaasi oo ay ku weyday walaalkeed iyo dumaashadeeda. Waxa kaliya oo ay ka walwalsanayeen mas'uuliyiinta Iiraan ayaa ahayd in bikranimadeedii ay weyday. Waxay sheegtay maalinkii ay hooyadeed ay weydiisatay in la hubiyo bikranimadeedii ayuu qabiil ka socda ururka qaynuunka daawada Iiraan ilmo yimid. Kadib markii ay hubinta sameeyeen ayayna siiyeen warqad oranaysa inaan shilka ku waayay bikranimadeedii ayay tiri. Haddaba maxay tahay muhiimadda bikranimada? Iiraan ayaa bikranimada weli ka tahay arrin aad u muhiim ah. Inkastoo ay jirto isbeddel ku yimid bulshada Iiraan sababo dhaqan iyo diimeed ayay qoysas badan u doonayaan in caruusadu ahaato bikro ka hor guurka. Jamhuuriyadda Islaamiga Iiraan ayay isu galmoodka guurka ka hor ceeb kaliya ka ahayn, balse ay sidoo kale ka tahay dambi maxkamaduhu kugu ciqaabayaan. Ali Khamenei oo ah hogaamiye iyo wadaad sare oo Shiicada Iiraan ah ayaa si joogto ah uga hadla muhiimadda ay u leedahay dhaqanka Islaamka inaan galmood la sameyn, isagoo difaacay bikranimada in ay keento isku xirnaan. Bikranimada kama ahan Iiraan arrin diimeed oo kaliya, balse waxay sidoo kale ay ka tahay arrin dhaqan. Gabadha bikrada ah lama guursan karo iyada oo uusan aabaheeda ogolaanin. Haddaba qaababka hubinta gabdhaha Iiraan ayaa loo arkaa inay bikro yihiin marka xuubka hoose uusan dhaawacnayn ayna hubiyaan dhaqaatiirta ururka caafimaadka. Hubinta noocan ah ayaa dalalka qaar laga ogolayn inkastoo aysan Iiraan ka jirin qaynuun diidaya. Maxkamadaha Iiraan ayaa amri kara in bikranimada gabadha la hubiyo marka uu kufsi dhaco ama ninka sheego in xaaskiisa aysan bikro ahayn. Mararka qaar hubinta bikranimada waxaa sameeya gabadha ama reerka gabadha si ay ugu cadeeyaan qoyska wiilka inay bikro ay tahay gabadha. Sima oo gabar reer Iiraan ah ayaa martay hubinta bikranimada ka hor guurkeedii, waxayna sheegtay inaysan dooneynin balse qoyskeedii ay ku qasbeen sidaasna ay ku sameysay. Kadibna hooyadeed ay siisay warqad cadeynaysay in gabadheedii ay bikro tahay qoyska wiilkeedii. Si kasta ha ahaatee, qaar ka mid ah gabdhaha Iiraan ayaa galmo sameeya ka hor guurka marka ay go'aansadaan inay guursadaan una soo doonto nin aysan garanaynin ayna sameeyaan qaliinka bikra soo celinta. Qaliinka ayaa ah hab toos ah oo khatar yar, wuxuu isku xiraa xuubka kaasi oo qaadanaya ilaa 30 daqiiqo. Tutor cilmi oo dhakhtar haweenka ka ah Tehran ayaa sheegaya inay ogaan karaan haddii qofka sameeyo qaliinka soo celinta bikranimada, balse waxa uu doorbiday inuusan ka hadlin. Sanes ayaa sameysay 3 sano ka hor qaliinkan, iyadoo sheegtay in qoyskeedii ahludiin yihiin. Waxaan doonayay inaan xor ahaado oo aan go'aanka jirkayga gaaro, balse qoyskaygii ma ogolo. Wiil aan saaxiibo ahayn oo aan wada seexanay isna guursan weynay ayaa iga caawiyay helista dhakhtar gaar ah, sidaasi ayaan ku sameeyay qaliinka. Sanad kadib ayaan guursaday ninkaygii, wuxuu ii maleeyay inaan bikro ahay. Somiya ayaa sidoo kale martay qaliinka, iyadoo sheegtay faraqa ragga iyo dumarka ayaa ah in ragga ay sameyn karaan galmood intii ay doonaan, kadib ay isku dayayaan inay helaan gabar bikro ah. Waan doonaynaa inaan galmood sameyno ka hor guurka. Qaliinkan ayaa noo ogolaanaya inaan soo ceshano bikranimadeennii marka aan galmood sameyno haddii ay bikranimadu muhiim ay tahay. Daawade warbixintan haddii aad dhamaysatay, fadlan haddii ay ku cajabisay page-keeni YouTube-ka subscribe saar. Haddii
ay aad kuu soo jiidatana like ugu dar. aad ayaad u mahadsantahay. ku xirnow mar walba page-kan YouTube-ka ee Keenaanka Nolosha ah.